asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ciid mubaarak dhalinyaro soo dhawaado inaa fiicantiin baa rajeynaya idinka iyo faamilkiina iyo dadka idin ehelkiina oo idin dhow inaa bash bash iyo barwaaqo ku ciiteen baa rajeynaya insha allah sida ballanta ahayd maadaama tobanka dambe ramadaan ku jirnay aan koorskan bilownay inta dambe maadaama cibaada iska ahayd waa hakinay si micnaha qof walbo asoo free ah uu koorskan ula soo kulmo asoo soo cibaadaystay oo ilaahigiisa maarata soo baryay insha allah waxaa rajeynaya ducooyinkeena la aqbalo sida caadiga ahayd hore waxaynu soo aragnay hordhace cryptocurrency cashirkan ayay ahayd marka hore inaan kow ka dhigno maadaama contentska iyo waxyaabaha guud ee korsa ku saabsan cashirkan kaga hadli doono laakiin kaa waxaan uga dhigay hordhaca qof aanba cryptocurrency iyo waxyaabaha aan ka hadlay aanan garanayn hordhac inaan u sheego way ku adkaanaysaa marka waa rajeynayaa marka inaad fahantaan sababta aan hordhac kaas uga dhigay kadibna aan contentska iyo waxyaabaha aynu baran doono aan koorskan uga hadlayo waxaan rabaa aan classkan uga hadlayo marka qalinkaaga warqadaada soo qaado insha allahu tacaala maanta cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay inaan ka hadlo waxyaabaha guud ee ay tahay inaynu barano ama fahano ama mawduucyada ay tahay inaan koorskan intaynu ku guda jirno aan qaadano ayaan kaga hadli doona ay siday usoo kala horeeyaan marka warqad inaad soo qaadato oo qalinkaaga soo qaadato oo aad qorato waa muhiim si micnaha ula socoto maalinba cashirkan soo gelin doono insha allahu iyo mawduucaan ka hadli doono contentska ama waxyaabaha koorskan ay ka kooban tahay way fara badan yihiin tan koowaad blockchain and cryptocurrency cashirka horan kaga soo hadlay oo hordhacan kaga dhigay si micnaha cryptocurrency loo wada fahmo waxyaabaha ahayd waxyaabaha ayadan aan ka hadli doono waxaa ka mid ah wallets of cryptocurrency yacni qaabka loo kala bedesho lacagta exchange-ga la isticmaalo caan waxaa ah Binance oo Soomaalida aad u isticmaasho laakiin cashirkan ka labaad kama dhigayo maadaama dii qofka inuu macnaha coin iibsado iyo inuu iska iibiyo ay ku xiran tahay inuu wax marka hore wax badan fahmo laakiin cashirkaas dib ayaan u dhigi doonaa insha allah wallet of cryptocurrency dib aan u dhigi doonaa laakiin waxyaabaha aynu baran doono ayuu ku jiri doonaa hadduu ilaah maydiin sidoo kale waxaynu baran doonaa wax loo yaqaano different types of analysis yacni noocyada faraha badan ee wax loo taxliiliyo ama dadka markay analyze sameyn ay isticmaalaan oo cryptocurrency ka mid ah waxaa jirto afarta nooc waxaa loo yaqaana technical analysis taasoo qusaysa macnaha qofka inuu gacmaha wax ka qabto waa technique macnaha shaxda dadka ay sawirayaan iyo qaabka loo sawirayay waa aragtay sidoo kale waxaa ku xigta waxa loo yaqaano fundamental analysis oo inta badan qusaysa economic relevance ama newska yacni mararka qaar coinka inuu kor u dhaco inuu hoos macnaha inuu kor u kaco inuu hoos u dhaco waxaa sababi karta fundamental analysis ama newska suuqa kasoo baxay dhaqaalaha ayaa sababi kara waxaynu ka hadli doonaa sidoo kale waxa loo yaqaano on-chain analysis oo iyadana muhiim inoo ah marka analysis laga hadlayo waxaynu ka hadli doonaa sidoo kale waxa loo yaqaano sentiment analysis oo iyadana muhiim ah marka tan koowaad ee technical analysis waxyaabo fara badan baa soo hosgeli doona waxaa soo hosgeli doona waxaa ka mid ah support and resistance oon cashirkeena ku bilaabi doono oo cashirkan kan ku xiga wuxuu noqon doonaa waxa loo yaqaano support and resistance yacni suuqa meesha ugu hooseysa iyo meesha ugu koreysa inaad kala fahanto waa muhiim oo cashirkeena ku xiga insha allah sidoo kale waxaynu baran doonaa waxa loo yaqaano candlestick ama maxaa la yidhahdaa shumacyada ay shaxda leedahay marka dadka waa aragtay uma inaad shaxda ay sawirtaan shumacyo kala duwan bay leedahay marka shumacyadaas candlestickska loo yaqaano waxyaabaha yihiin waa arki doonaa waxaynu arki doonaa sidoo kale waxa loo yaqaano market structure ama naqshada uu suuqa samaysto iyo qaabka ay u dhiganta waa arki doonaa waxaa kaloo arki doonaa qaabka xariiqamaha loo saarto trade lines ayaa loo yaqaano channels iyadana cashir gooni aan ku arki doonaa waxaynu ku arki doonaa marka zones of the market zonesha iyo meelaha uu suuqa markaa ka kaco ayaan arki doonaa oo iyadana muhiim ah oo market structurekaas la xiriirta sidoo kale waxaynu arki doonaa wax loo yaqaano chart pattern naqshadaha ay shaxda samaysato shax kala duwan baan insha allah waan arki doonaa oo coin kala duwan ah marka naqshadaha ay samaystaan oo cashir muhiim ah oo ilaa iyo 7 naqshad 9 naqshad soo isgeli doono iyadana waa arki doonaa hadduu ilaaha ma yidhiin marka technical analysis intaana hoos imaado waa support and resistance waa candlesticks waa market structure waa trend lines and channels waa zones of the market waa chart pattern intaas ayaa hoos imaado marka waxaa la isku dhahaa intaan technical analysis cashirkeena koowaad waxaan ka dhigi doonaa wax loo yaqaano support and resistance sidoo kale waxaa jira marka indicatoro ama halbeegyo wax lagu cabiro oo aan ayagana baran doono insha allah halbeeg koowaad wax loo yaqaano moving average oo iyadana muhiim ah RSI asagana oo indicator aad iyo aad u muhiim ah sidoo kale Fibonacci retracement oo asagana aad iyo aad u muhiim ah indicatoran dhamaantood waynu baran doonaa hadduu ilaah ma yidhiin sidoo kale waxaynu baran doonaa Binance aan kusoo hadlay wallet of waxaan yiraahdaa cryptocurrency ka mid ah ama exchange-nada ka mid ah waxaynu baran doonaa qaabka macnaha pi isa loo sameeyo ama qaabka coin aad ugu iibsan lahayd Binance dhexdiisa ama sidoo kale aad USDT isaga iibin lahayd iyo usoo iibsan lahayd sidoo kale waxaanu baran doonaa investing and trading on cryptocurrency qaabka investment loo sameeyo loo trade gareeyo oo anagoo isticmaalayna marka insha Allah Binance waxaynu kaloo arki doonaa waxa loo yaqaan investment plan oo suuqa marka aad inaad gasho plankii qorshaha la dhigto ayaanu arki doonaa
waxaynu kaloo arki doonaa insha allah coin selection. Coinka aad iibsanayso marka la dooranayo waxyaabaha ay muhiimka tahay inaad iska fiiriso aad ku dooranayto waa baran doonaa. waxaynu baran doonaa shax muhiima loo yaqaano top down analysis, waa in kor shaxda laga soo bilaabo hoos la geeyo iyadana qaabka ay u shaqeyso waa arki doonaa. waxaynu sidoo kale baran doonaa wax loo yaqaano xalaal and xaaraam, coinkan inuu xaaraan yahay inuu xalaal yahay, meelaha laga arkay waxyaabaha muhiimka tahay inaad iska fiiriso waa arki doonaa. waxaa kaloo arki doonaa sidoo kale risk management. suuqa markaa soo geshid waxaa waaye lacagna waa khasaaraysa lacagna waa faa'iideynaysa, marka qaabka riskiga ama khasaarahaga loo manage gareeyo adigoo luminaya keliya 2% ayaan arki doonaa. sidoo kale waxaynu arki doonaa wax loo yaqaano discipline, akhlaaqiyaadka ay tahay suuqa inaad kusoo geshid oo asagana aad iyo aad u muhiim ah. marka intaas mawduuc ayaynu koorskan si guud ku baran doonaa. marka cashirkan inaad macnaha qalin iyo warqad ku qorato waxyaabahan baran doono mawduuc kasta meeshiisa maadaamaan ugu tegi doono. waxyaabaha aynu baranayno inaad warqad iyo qalin ku qorto waa muhiim si macnaha aad cashirka mid mid ula socoto. mid kastana mawaadiic fara badan baa soo hoosgeli doona toobigyadan waa kuwan wada baran doono, laakiin toobig kastoo ka mid ah mawaadiic fara badan ayaa soo hoosgeli doona insha allah meeshoodan ugu tegayna hadduu ilaahay maydin. laakiin waxaan kaa codsanayaa maadaama ay jiraan dhalinyaro fara badan oo waxyaabahan lacag lagaga cuno qaabka loo baro, inaad muuqaalkan maadaama mas-uuliyad kaa saaran tahay haddaad ba aragtid inaad walaalkaaga la sheergaraysid ama aad meeshan garaysid sidoo koorskan dhammo bilow ilaa dhammaad ula socdo isagoo oonan wax lacaga laga rabin ayuu koorskan insha allah halkan ku baran doonaa. marka waxaan macnaha aan kaaga dhigayaa shardi in walaalkaaga aad la wadaagto oo muuqaalkeena meel dheer aad gaarsiiso. waa rajeynaya insha allah inaa codsiga ii fulisaan. asalaamu calaykum, waxaynu ku kulmi doonaa cashirkan cashirka xiga hadduu ilaah maydin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.